Bismillah. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Dhammaan ardayda ku xiran pejka Subxaan Creative waan idin salaamay. Cashirkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay sidee baa qoraalkaada create outline loogu sameeyaa sida qaabkan oo kale. Haddaba anaga kuu sheegayaa balse intaanan kuu sheegin oon cashirka u guda gelin waxaan kaa codsanayaa pejka inaad subscribe saartid oodna like saartid. Okay, marka u horeysa waxaa sameysanaysaa qoraalaa soo qaadanaysaa meesha ay ku qoran tahay tool aad tegaysaa halkaasoo kale qoraal ku qoranaysaa. Tusaale kale waxaa ku qoranayaa hadda isla magacaas oo kale ku qoranayaa subxaanyo kale markaa ku qorto hadda waa qoraal wax waa ka bedeli karaa waxa doonan oo kusoo darsan karaa. Okay, waayahay marka horeysa waxaan sameynayaa qoraalkayga select gareysanaya ama aan dooranaya right kaliya leeyahay kadib meesha ay ku qoran tahay create outline aan ku dhufanaya ama keyboardkaada waxaa ka qaban kartaa shift plus control plus o markaad taabatid hadda shape uu kuu noqday waxaad tegaysaa isagaa dooranaysaa waxaa sii tegaysaa meesha ku qoran tahay appearance haddii intuusan kaaga muuqanin waxaad tegaysaa window markaad tagtid meelahan aad ka raadinaysaa appearance automatically waa kana ama waxaad taabanaysaa shift plus f sigiisaad taabanaysaa appearance waa kana. Markuu sidan kugu soo baxo waxaad tegaysaa saddexdaas corner saddexdaas gees aad click siinaysaa kadib waxaa leedahay add new file aad leedahay markaad dhahdid meesha ay ku qoran tahay stroke aad ku dhufanaysaa kadib halkan waxaa ka dhiganaysaa ilaa lambar 5 oo kale markaa sidaas aaga dhigatid meesha ay ku qoran tahay add new infect aad ku dhufanaysaa kadib markaa ku dhufatid add new infect kadib meesha ay ku qoran tahay path aad ku dhufanaysaa waxaa kusii dhufanaysaa offset path kadib meeshan tiradan 10 waxaa ka dhigaysaa 20 markaa gelisid meesha ay ku qoran tahay meterna waa ka bedelaysaa waxaa ku bedelaysaa round automatically okay aad leedahay kadib sidaas markaa sameysid haddana waxaa ku laabanaysaa add new infect aad ku laabanaysaa kadib haddana waxaa ku dhufanaysaa meesha ay ku qoran tahay pathfinder kadib add aad leeyahay igu dar aad leedahay hadda waa kana automatically hadda waa sameysanay waxyar noo soo weynay si aan kuu tuso labadaba hadda wax farqiga u dhexeeya ma lahan waa same waa sameynay hadda xitaa hadda waa ka bedeli kartaa colorka stroke waa ka bedeli kartaa stroke colorkan oo kale hadda siisano saasuu noqonayaa filkan waa color gooniha xitaa hadda colorka hadda siisano waa kaas sidaas quruxda badan ayaad u maamulan kartaa. Cashirkeeni intaasuu ku ogyahay inaa fahanteen rajeynaya. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.